السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي ورمسيتهين في عنتهين حارجينا في عنتهين دمانتين أنا جنوا في عن سيدوك الحمد لله. سودا هذا ساك مش أنا قبل من ساق قراع كرسكينا مش أنا محاربة إن نسوكريو هيلب أون مرقي سعبنو إن هيلب كان أنكو عنو محل لها روتي أن سوكري بإذن الله بريها نقبو واسك جرجري هرقبا ونقبحي لأبو waxaa irbalsaaka waa inaan maraq karsano oon maraqaas fiican u cabno laga yaabaa inuu naga baxo hergebkee cabura aan isi raacsan marka alxamdulillah halkaana waxaan soo jarjartay daaniya hal xabo xiran baan soo jarjaray waxaan kaloo soo jarjartay toon ayadana hal xabo xiran baan soo fiiqay iyo waxaan kaloo ku soo daray sanjabiil intaana waxaan gelinayaa mashiinta waa isku soo shiidaya kadib hidibkii waa kana hadda xigaan ku soo daray iyo biyaan ku soo daray dabka raba inaan saaro waxa dareemay inuu ku yar yahay intaan ku soo daray haddana waa kana intii kale baan soo raaciyay ku soo daray maasha Allah marka waxaan rabaa dabka inaan soo saaro oo isla soo badbadaan marka maraqan saaka maasha Allah haddaan oo casr la maraa waxa moodaa xoogaa inaan faxfax dareemayo kadib meeshaan hadda waxaan rabaa inaan soo qasto rootigii aan karin lahaa oo hilibkaas iyo maraqaas lagu cuni lahaa meeshaan hadda waxaan soo qaatay bur nus kiilo waxaan ku soo daray ukun hal xabe iyo sonkor yar iyo cusbo yar iyo fixiso waan soo xashay maasha Allah sidaas quruxda badan uu ku soo baxay waan soo daboolayaa waxaan isku soo laabaneynaa 40 daqiiqo kadib waxyaalihii yaryar iyo shaahi shurbadii waxyaalahaas iska sii karkarnaa insha Allah kadib waa kana hadda burkii uu ii soo faxay meeshaan aan ovenki soo shitay 10 daqiiqo waa kana hadda anigoo weelka saliid kor iyo hoos ku soo marinayo marka weelkaan ku gelinayaa waxaan rabaa inuu shape-kaas ii noqdo insha Allah marka laba cadaan ka kala dhigay cadkaana horgelinaya kadib nuska kala reeban gadaalan ka gelinaya insha Allah marka waa isla simaaya sidoo qaabkaas ugu ekaado oo weelku u egyahay kadib markaan saan soo dhaho waxaan sugayaa inuu soo yara fuuro maraan soo saaraya marka arko inuu soo fuuray markaasaan ovenka gelinaya ovenka waa si shitaba waxaan leeyahay waqti uu ka tagin bahalka kulul geli kadib waa kana sidaan quruxda badan uu soo fuuray maasha Allah 20 daqiiqo camal meel yaalay ukunteena kor ka soo marineena shaharkii waa iska soo daadiyay qaybtan jaalaha bisaan heystaa afarta geesan ka soo marinaya kadib waxaan sameynayaa ovenkeygan dhab ku siinaya maasha Allah marka sidaan quruxda badan uu egyahay waa asagoo ovenka la gelin marka shape-kaas hadda uu weelku u egyahay baan rabaa inuu soo ekaado insha Allah marka kadib hilibkeeni baa noo soo karay hilibka jileec uu ahaa waqti badan buu qaadan maasha Allah uu soo karay caraf rabaa hadhow gadaan uga soo daran soo yar shiilo maraqina waa kana asagana sidaan ku soo baxay kabsartan ka badiyay maraq maasha Allah sidaas uu egyahay caraf filfil yar oo meel dheer ahna waan ku daray kadib waa kana hadda quraacdeena saaksan diyaar ku ahayd hilibkeena waa kana aan soo shiilo barbarooni basal wax ku soo daray rootigina waa kana asagana sidaan ku soo baxay marka waxaan sameynayaa midiyaan soo qaadanayaa afarta geesaan ka marinaya midida gudaha suusalka ugu dhigin oo hadhow markaan soo fujinayo isku soo wada raaco marka waxaa hubinayaa inuu ii soo wada baxaa inuu midida meel inay ku hakanayso in kale marka hadda kaasas uu badboodaya asaga dhan meel kuma hakanin marka waa kana rootigeygina waan soo jarjartay maraqeygina waa kana aan hadda soo shubayo idin tusaayo kaaliska aragaan ku dhahay maasha Allah ilaahay ha noo barakeeyo inta haysan ilaahay ha siiyo insha Allah marka quraacdeena saaka sidaan ay ahayd alxamdulillah marka waxaan rajeynayaa inaad comment iyo like iyo subscribe laga hilmaamin oo videogayga meel dheer la gaarsiiyo insha Allah kadib meeshaan aan jikada soo galay qaybtaan rabay saaka inaan hagaajiyo qaybta waxaa waaye geeskaas oo kor aan ku qabinayay weelasha bar kasta la isticmaalaa meeshaas ku guraa marka waa meel u baahan markasto in la hagaajiyo kadib meeshaan aan firiijkii aan shelfski dhan ka soo bixiyay iyo weelasha qudaartii wixii dhan aan saaka wada dhaqaayay maadaama aan rabo in adeegii dhan uu dhamaaday firiijkii dhan la dhaqaaya kor iyo hoos marka waxaan rabay hadii bitartiib inaan ku soo duubo kulli aan wada dhaqaayo laakiin ma suurtagelin telefoonkiina waa iga dami korontadana waa tagaday iska raali ahaada marka waan dhamay firiijkii adiga waan soo dhaqay
hadda wax dhan kuma jiraan, waa in loo soo adeego insha allah. kadib meeshaan adi maray casar aheedaan jikada soo galay oo korontadii ay timid. meeshaana waxaan kusoo shubtay 2 xabo ukun ah, si fiican aan isku soo dhexgelinaya 2 xabo ukunta aheed. casariye yar oo fudud baan rabaa inaan ilmaha uga soo tuuro. marka waxaan rajeynayaa videoga inaan meel dheer gaarsiisaan insha allah. like-ta ha loogu dadaalo markastaa fiirsanaysaan videoga, ama haddiidan fiirsaneyn xataa ama haddaa ka heshay like-ta dhac ha nagula siiyo insha allah. anaga wax weyn ay ka tahay agteena. marka waxaan rajeynayaa in like-ta nagala hilmaamin. sidoo kale dadka hore noola jooga waa mahadsantihiin, dadka kaloo nagu soo biiran waxaan leeyahay soo dhawaada. kadib adi markaa ukuntii isku soo qaraacay cabaaraan isku soo qaraacay ukuntii. kadib hadda waxaan kusoo darayaa sonkor, kuma soo badinayo sonkorta, xoogaha yaraan kusoo daray. ayadana si fiican isku dhexgelinaya. keegaaga haddaa rabtid markasta inuu jileec kuu noqdo waa inaad ku dadaashid inaad si fiican u qaraacdid. markastoo ukuntoo kale markaa keligeed ku dartid si fiican u qaraac, haddana sonkorta ku dar si fiican, haddana saliida bakinka markastaa wax cusub ku dartid si fiican u qaraac. shaki malahan ku dhahay keegaaga inuu kaa halaabeynin ama uu kaa adkaaneynin. kadib meeshaana hadda waxaan kusoo darsanayaa baking powder yar, waa isku soo qaraacay. haddana waxaan kaloo kusoo darayaa saliid koob halfkiis ah, ayagana sidoo kale si fiican isugu soo qaraacaya. haddana waxaan soo qaatay caano, waxaan galaas buuxin aheenan kusoo daray. kadib meesha hadda markaa si fiican isugu soo qaraacay waxaan soo qaadanayaa bakeeri iyo haaf yariis ah, intaasaan rabaa inaan ka sameeyo. haddana waxaan soo qaadanayaa qaado si meelaha iga firaarin, si fiican isugu soo qaraacaya maasha allah. kadib markaan qaadada isdhexgeliyo kadib aan mashiinta marinayaa. marka waa kana weelka inaan rabaa inaan isticmaalo oo cupcake loo isticmaalo. marka waxaa iga dhamaatay warqadii yareedoo la gelinayay intaadan cupcake ku shubin, laakiin dhib malaha, bur iyo saliidaan soo mariyay igama dhagaayo insha allah. saas rajeynaya inkastoona weligay baclaan isticmaalin, laakiin maanta waa isku dayeynaa. marka waa kana hadda markaan saliidii burkii soo mariyay waan kusoo shushubaa. inaa ka badisid oo lama rabo hadhow markuu soo fuuro uu zaaid qiyaastiis inuu u dhaafo lama rabo. marka waa ku yaryareynayaa. haddana galaaskaas dhulka waa isku ruxruxaya soo iskula ekaado. haddana waxaan soo qaadanayaa wax yaroo cocoa butter maqal cocoa powder iyo waxaa isku soo qaraacay, caano yar iyo burkan qasan. wuu ka jilicsan yahay keega. marka keeg maalin hore soo gelinayay waa isla nooci oo laakiin aan cupcake rabo inaan ka dhigo. marka waa kana hadda sidaan kusoo baxay. kadib haddana waa isku soo walwalaaqeynaa inaan isdhexgeliyaan rabaa kulligiis. markaan si fiican isku dhexgeliyo oon hubiyo kulligiis inuu isa soo dhexgalay baa hadduu ilaahay ku idmahayo waxaan sameynayaa. haddana waxaan soo qaadayaa qeybtii kaloo ii hartay sidii kale qaadan la isticmaalaya, kama badinayo. mar raba hadhow inuu zaaid iga soo fuuro uu qiyaasta weelka inuu soo dhaafo mar raba xadkiisa. marka waa inaana soo dhaafinin intaas uu dhaafin waayo. marka waa kana bitartiiban ugu soo wada shushubaya maasha allah tabaarakallah. diyaar waaye hadda. ovenkaygina waan soo shitay, sidaan quruxda badan uu kusoo baxay. marka haddana waa isku soo walaaqeynaa. waxaan rabaa mix inuu noqdo, uu hadhow markuu meesha kasoo baxo uu noqdo 2 kalaroo isku jiro. marka sidaanaan kusoo wada dhameeyey, waan soo wada walaaqay. kadib ovenkayga oo ii shidnaayaan soo geliyey. waa kana marka hore hoosaan u shiday 180 degree bisaan hoos u shiday. kadib adiga 20 daqiiqo kadib haddana kor iyo hoosaan u shiday oo asagana 180 ah. marka waa kana sidaan quruxda badan uu kusoo baxay. qeybtii labaadaan rabaa hadda inaan geliyo insha allah. marka sidaana isku ognahay. nabadgeliyo, bye bye.